الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله وحن كهل دونا هدي له يرادو تربية الأولاد موضوع عاصي إن شاء الله كهل دونا هدي له يرادو محايا لأمد إسلامكو باهي آد أدران أي أقفتا للموضوعات التربوية الموضوعات التربوية إن لغا هدلو si ummadda islaamku sharafteedii hore ay ugu soo noqoto at-tarbiya idan fi lugha mushtaqatun min al-fi'li rababa wa xagga luqada lafdu tarbiya waxa laga soo dhambashay ficilka rababa isimkiina waa ar-rabb wa yudlaq 'ala al-malik wa sayyid al-muta' wal muslih saddexda waa lagu idlaaqa ar-rabb maliga waa liraacida waxanata sayidka la ateecana waa la yiraahdaa muslixana waa la yiraahdaa macnaha dambe ayaa laga soo qaatay tarbiyada oo ah islaaxa istilaax ahaan culimadu waxay yiraahdaan tarbiya waxa la yiraahdaa tanshi'atu wa takwiinu insaanin saliimin muslimin mutakaamilin min jamii'i nawaahihi al-mukhtalifa waxay yiraahdaan culimada islaamka tarbiya waxa la yiraahdaa in la amaamudo tanshi'a wa takwiin la jirsiyo oo la amaamudo insaan saliim ah oo nabad galay muslimin oo muslim ah mutakaamilin min jamii'i nawaahihi al-mukhtalifa oo mutakaamil oo dhameystiran min jamii'i nawaahihi al-mukhtalifa dhinacyadiisa kala duwan dhan ay u dhameystiran tahay min an-naahiyati al-aqliyya was-sihhiyya wal-i'tiqaadiyya wal-idaariyya wal-ibdaa'iyya intaba makaanatu tarbiya fil islaam makaanada ay ku leedahay tarbiyada islaamka dhexdiisa waxa tusaya aayaad aad iyo aad u fara badan iyo ahadiis nabiga laga wariyo sallallahu alayhi wasallam ilaahi wina subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay yaa ayyuhalladina aamanu quu anfusakum wa ahliikum naara ilaahi wina wuxuu leeyahay dadka muuminiinta ahaw naftiina ka badbaadiya iyo ehelkiina naar ka badbaadiya quu anfusakum wa ahliikum naara ehelkiina iyo naftiina waxaad ka badbaadisaan naar sidaas ilaahi wina oranaya wuxuu yiri Ali radiyallahu ta'ala an adibuhum wa 'allimuhum soo ka hadlay aayada ilaahi wina wuxuu na amray inaan nafteena iyo ehelkeena naar aan ka badbaadino nafteena waxaan uga badbaadinaynaa inaan la imaano ilaahi wina subhanahu wa ta'ala wax allaaliyo wuxuu na amray taacadiisa aan la nimaano wax allaaliyo wixina la ka reebana aan ka harno ehelkeennana waxaan uga badbaadin karnaa inaan edbino oo markay yar yihiin ay aruurta la edbiyo kadibna wax la baro adibuhum wa 'allimuhum sidaas uu leeyahay Ali radiyallahu ta'ala an nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiiskii saxiixa ah wuxuu yiri kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun 'an ra'iyati dhammaantiin mid kasto idin kamidahi waa raaci waxba la raaciyay wa mas'uulun 'an ra'iyatihi wana la su'aalaya wa kullukum mas'uulun 'an ra'iyatihi sidaas uu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam qof kastana wixii la raaciyay waa la su'aali doonaa nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis imaam muslim oo soo saaray wuxuu nabigu oranayay sallallahu alayhi wasallam ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وحو النبي صلى الله عليه وسلم مجرى الضون إلهي وإنا سبحانه وتعالى أو رعية ويموت يوم يموت أونا لمن يمان انتو لمن عيو وهو غاش لرعيته الصغو خياني رعيدي سوح إلهي وإنا سبحانه وتعالى الرعي إلا هدوجر حرم الله عليه الجنة إلهي وإنا سبحانه وتعالى وحو كحرما جنة أيو كحرما إنو قال قفكاس عبد الله ابن عمر وحا لقوري إنو يري أدب ابنك فإنك مسؤول عنه أدب ابنك إنك هذا إدبي فإنك مسؤول عنه adiga waxaad mas'uul ka tahay oo maalinta qiyaamo lagu weydiinayaa
maadaa addabtahu wamaadaa callamtahu maxaad ku edbisay cunugaadii maxaad bartay adigaa mas-uulka ah amaamallaahi waa lagu weydiin doonaa wa huwa mas'uulun can birrika wa tawaaciyatihi laka asagana wuxuu mas-uul ka yahay inuu adiga kuu samafalo inuu adiga ku adeeco warkaada yeelo asagana waa la su'aalaya nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu noo sheegay tarbiyada inay ka khayr badan tahay min as-sadaqa nebigu wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam lian yu'addiba ar-rajulu waladah khayrun min an yatasaddaqa bisaa'in wuxuu nebigu yidhi sallallahu calayhi wasallam ruuxu inuu edbiyo carruurkiisa ayaa ka khayr badan min an yatasaddaqa bisaa'in inuu saac raashina aw sadaqaysto waxaa ka khayr badan cunugiisa inuu edbiyo edabtiisa uu ku dadaalo xadiidkaasna waxaa soo saaray imaam axmed iyo tirmidi nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu kaloo noo sheegay in carruurka la baro akhlaaqda wanaagsan ayaa ka fadli badan min kulli cataa'in wax kasta oo la bixiyo oo waalidku uu bixiyo carruurkiisa uu siiyo waxaa ka fadli badan inuu akhlaaqdiisa wanaagsan waxa weeyaan uu baro akhlaaqda wanaagsan inuu baro nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi maa naxala waalidun waladan afdala min adabin xasan maa naxala waalidun waladan ma siiyo waalid carruurkiisa ma siiyo afdala min adabin xasan wax ka wanaagsan aadaabta wanaagsan ma siiyo sidaasuu nebigu leeyahay sallallahu calayhi wasallam xadiidkaasna tirmidiya soo saaray waa xadiid xasana weeye nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu kaloo noo sheegay xadiid uu soo saaray imaamu albukhaari fi adab almufrad uu ku soo saaray waa xadiid xasana weeye sheekh naasirudiin albani waa taxsiiniyey jaabir ibnu cabdillaahi ayaa warinaya wuxuu yidhi jaabir rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi man kaana lahu 3 banaat qofka iska leh oo ay u sugnaato 3 gabdhood yu'wiihinna wayakfiihinna wayarxamuhunna faqad wajabat lahu aljanna albattata wuxuu nebigu yidhi sallallahu calayhi wasallam qofkay u sugnaatay 3 gabdhood oo soo dumayoo hoy u sameeyey haddana kaafinaayo wayakfiihinna waxbarashadoodii waxa weeyaan dharkii qaadan lahaayeen waxay cuni lahaayeen ka kaafinaya wayarxamuhunna u naxariisanaya qofkaas sidaas sameeya faqad wajabat lahu aljannata albattata waxaa qofkaas u waajibtoo nebigu yidhi sallallahu calayhi wasallam janna u waajibtay go'naan nin saxaabadii nebiga sallallahu calayhi wasallam ka mida ayaa wuxuu yidhi wathintayni yaa rasuulallah rasuulka ilaahayuu labana bal ka war markaasaa rasuulku wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam wathintayn labana waa sidoo kale oo laba qofkay u sugnaatay oo waxa weeyaan edabtooda ku dadaala oo edbiya hoygooda iyo marashadooda iyo tacliimtooda iyo waxbaridooda ku dadaala waxa weeyaan asagana sidaasoo kale janno ayuu ku gelaya idan marka waxaan ogaanay gabdhaha oo la tarbiyeeyaa oo tarbiyadooda lagu dadaalaa waa xijaabun cani naar naarta ayay xijaab kaaga noqonayaan sidaa daraaddeed marka walaalayaal waa inaan ku dadaalno carruurteenna waxa weeyaan waalidiintu waa inay ku dadaalaan ilmaha tarbiyeyntooda inay ku dadaalaan sidaasoo kale dadka waxa weeyaan culimada oo a'immadaana sidaasoo kale inay ku dadaalaan macaahidda sidaasoo kale sharciga ilmaha edabtooda in lagu dadaalo weeye maxaa yeelay ilmuhu waxay ka mid yihiin min nicamillaah ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala nimcooyinka uu bixiyo ayay ka mid yihiin ilmaha marka waalidka waxaa laga rabaa dadaal inay ku dadaalaan oo waxa weeyaan marka hore tarbiyadu waxay ka soo bilaabataa gurigay ka soo bilaabataa hooyada iyo aabbaha waxaa la rabaa inay ku dadaalaan oo ilmaha tarbiyadooda ay soo dhisaan amaa hagaaga soo maahan salaaxa fa min allah inuu cunugaadu cunug wanaagsan noqdo waxa weeyaan min cadiyatillaahi ayay ka mid tahay laakiin dhammaanteen waxaa nala gudboon
inaan waxa weeyaan ku dadaalno ilmaheenna wallahu subxaanahu wa tacaala aclam